dumarku ma masaakiin baa hadday sawirro aan caadi ahayn noo soo dirto gabadha waxaan dhahnaa waa doqon midaan hadday sawirradeeda noo diido waxaan dhahnaa naguma kalsoona inta aan ku kalsoonnahay oo kale hadday wiilkay jeceshahay magaalada la aado waxaan dhahnaa waa isla wareegto haddaysan guriga ka bixin waxaan dhahnaa tan dabeecad lagu shukaansado xitaa ma laha hadday mar kastana soo wacdo waxaan dhahnaa tan waardiyay naga haysaa maba nasato masaakiinta haddaysanba na soo wicin maalintaa waxaan dhahnaa tan waa danaysato oo nooma xiisto haddii aysan naga masayrayn waxaan dhahnaa tan dhiig ma lahan dabkaa ku yar malaha hadday tahay gabar masayr badan waxaan dhahnaa tan wixeeda waa kabadbadis gurigeeda oo dhan waxay uga soo tagtay ninka ay jeceshahay dartiis maya tan waa qalad ninka xitaa gurigiisa waa ay ka soo tagtaa ragow caadi maan iska dhigno dumarow idinkuna dhibkamaa dhaaftaan haddii uu soo gaaray muuqaalkan astaamaha aad ku garan karto gabadha sida dhabta ah kuu jecel way fara badan yihiin astaamaha lagu garto inay gabadhu ku jeceshahay hase yeeshee kuwooda ugu muhiimsan ee lagu garto waxaa ka mid ah farxad ayaa wejigeeda laga dareemaa mar walba oo ay maqasho magacaaga ama ay muuqaalkaaga aragto waxay barataa ama ay la saaxiibtaa dhammaan asxaabtaada iyo qaraabadaada si ay mar walba ula socoto xaaladda aad ku sugan tahay waxaad adigu jeceshahay ayay iyaduna jeclaataa oo dooqaaga ayaa dooqeeda noqda si walba oo aad u xumaysid waa tii ku cafisaa ka hor inta aadan adigu ka raaligelin waxaad ku arkaysaa hinaaso iyo lixa jeclo ay adiga kugu ilaashato maxaa yeelay waxa ay rabtaa in iyada oo keliya ay ku yeelato mana doonayso qof kale inuu kula qaybsado nafsadeeda iyo mustaqbalkeeda oo dhan ayay gacanta kuu saartaa oo ay adiga kugu aamintaa ma aqbasho cid walba oo aan adiga ahayn oo jacayl ula timaada daqiiqad haddii ay ku weydo waxay uga dhigan tahay iyadoo sanad ku weyday kalama jecla inaad taajir tahay iyo inaad faqiir tahay maxaa yeelay ujeeddadeeda ugu weyn ma ahan qofka aad maanta tahay balse waa qofka aad berri noqon doonto way kaa xanaaqdaa balse kaama maqnaato mar kastoo aad isqabataan misena aad heshiisaan waxaa kusii kordha jacaylka ay adiga kuu qabto waxay ku bartaa dhammaan asxaabteeda iyo qaraabadeeda maxaa yeelay waxaa tahay ruuxa keliya ee ay asaageeda uga faanto haddii uu ku soo gaaray muuqaalka inoo laygaree sidoo kalena muuqaalka inoo sheergaree guriga aabbe iyo hooyo waa guriga keliya ee maalintii 10 mar ka badan aad tegi karto adigoon laguu yeerin waa guriga keliya ee albaabkiisu furaha ka taagan yahay oo markaad tagto iska furi karto waa guriga keliya ee markaad tagto indho naxariis badan lagugu soo dhaweynayo waa guriga keliya ee markaad tagto aad cunayso raashin wixii yaalla haddana aadan dhargeyn oo calooshu buuxsamayn waa guriga keliya ee markii aadan raashin ka cunin hooyo iyo aabbe ay murugoodaan waa guri markaad tagto dib u soo xasuusato yaraantaadii hore iyo farxaddii aad ku noolayd waa guriga tegistiisa eegmada naxariista leh ee hooyo iyo aabbo sheekadooda iyo farxaddooda xaddaafka ah ajar lagaaga qorayo oo alle kaaga raali noqonayo waa guriga markii aadan aadin maalmo iyo sannado qalbigaaga uu u hiloobo indhahaadana ay ilmo ku soo istaagto xasuus iyo hilow dartiis waa guriga ay ka daaran yihiin ilaa hadda haddii aad haysato labadii shumac ee noloshaada dunida kuu soo iftiimiyey adiga waa guriga keliya ee hadalkaaga xitaa haddii uu qaldan yahay lagu leeyahay xigmad ayaad ku hadashay haddii aad qosashana lagula qoslaa haddii aad oysana lagula oynayo waa guriga keliya ee lagu kaydiyey farxaddii dunida oo dhan ayna kaaga xiran tahay inaad tagto booqato maalmaha qaarkood oo keliya haddii